بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa igu wallaahi ah waxaa igu wallaahi ah igu billaahi ah igu billaahi ah igu tallaahi ah igu tallaahi ah oo aan magaca ilaahay oo magaca ilaahay ugu dhaaranayaa ugu dhaaranayaa in aan xilkayga inaan xilkayga u guto u guto si daacad ah si daacad ah oo ay ku jirto oo ay ku jirto danta dalka iyo deegaanka danta dalka iyo deegaanka dhowraayana dhowraayana dastuurka dastuurka iyo shuruucda kale iyo shuruucda ee kale dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya u degsan. ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. wabillahi tawfiiq. wabillahi tawfiiq. runtii marka ugu horeyso waxaan salaamayaa salaanta islaamka gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed, gudoomiyaha maxkamadda sare ee koonfur galbeed, gudoomiyaha la magacaabay ee gobolka shabeellada hoose. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. maanta waxay tahay maalin farxada oo munaasabad farxadeed ah. waxaan inta u fadhinaa oon inta u joognaa dhaartii dastuuriga ahayd ee gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellada hoose ee shalay la magacaabay. runtii marka ugu horeyso waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay mas-uuliyadda iyo xilka loo dhiibay sida ay tahay uu u guto, ilaahayna uu waafajiyo xaqa iyo cadaaladda iyo mas-uuliyadda laga rabo inuu ilaahay waafajiyo. asagana nin mas-uul ah waaye, mas-uuliyaddaas inuu ilaahay garabkiisa galo. annagana dowladda koonfur galbeed madaxweynihii anoo ah magacayga ku hadlaayo, maadaama gobolka shabeellada hoose uu muhiim u yahay dadka reer koonfur galbeed iyo dadka soomaaliyeed oo dhan, gobol muhiima oo khayraadkiisa leh, oo populationkiisa leh, oo culayskiisa leh uu yahay, inaan maxay ahayde aan mas-uuliyad gooni a iska saarno. waxaan kaloon aaminsanahay gudoomiye CD nin deegaankaas laga jecel yahay, horeyna uga soo shaqeeyey, shaqo fiicanna ka soo qabtay, deegaanadan koonfur galbeedna laga jecel yahay, gobolka shabeellada hoose xoreyntiisii iyo howlgalladiisina aada uga soo shaqeeyey inuu yahay. marka waxaan aaminsanahay inuu meeshii iyo kasii fiican uu ka wadi doono. gobolka labadii sanoon inta joognay waxaan ka qabanay shaqooyin badan oo aada u fiican. gudoomiyaha gobolka la bedelayna sidaas oo kale shaqo aada u fiican ayuu ka qabtay gobolka intii uu joogay. adigana waxaan jecelnahay, waxaan aaminsanahay inaad meesha kasii wadi doontid. waxaan maraynaa janaale howlgalladii wadajirka ahaa oo ciidamada oo soo maray ilaa iyo ka bilowday Sabiid iyo Caanoole iyo Mareerey iyo Bariire, degmada Owdheegle, hadda janaalo maraya. waxaan jecelnahay haddii ilaahay yiraaho inuu horey usii socdo. labada degmo oo kale oo dhiman oo Kunturwaarey iyo Sablaale ayadana haddii ilaahay yiraaho ilaahay ku waafajiyo, adigoo dowladda koonfur galbeed iyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka la kaashanaysid, annagana aan gacantaada midiganahay inaan maxay ahayd aada adigana guushaada ay noqoto ku guuleysatid. markii aan imaanayey aan madaxweynaha noqonayay 3 degmaha gobolka shabeellada hoose yaa la haystay. hal degmo ilaahay baa noo fududeeyey, waa degmada Owdheegle. labada degmo oo kale hartayna insha allahu tacaala sanadkan cusub hadduu ilaahay yiraaho waxaan jecelnahay in lagu guuleysto. mudane gudoomiye soo dhawow, aada ugu faraxsannahay. mas-uuliyadda lagu saarayna ilaahay kula qaado. dadka shabeellada hoose dadka aad taqaanay waaye, wadanka wadankii waaye, dhulka ugu khayraadka badan Soomaaliya waaye, dhulka ugu dadka iyo populationka badan Soomaaliya waaye, dhulka dadka ugu fiican waaye. waa xoolo iyo beero iyo kalluun intaba dhulka laga heli karo iyo batrool yaa ku jiro. waa meesha Soomaaliya oo dhan ay kaga baahi bixi karto, koonfur galbeed maaha. Soomaaliya oo dhan haddii shaqo laga qabto oo dhulkaas nabadiisa laga shaqeeyo oo khayraadka ku jira lasoo saaro, qof kasta oo Soomaali ma baahanayo. marka annagaa ilaahayna waafajiyey, annagaa ilaahayna makaniyey, annagaa ilaahay deegaanka annaga ka dhigay, annagaa ilaahay mas-uuliyadoodana saaray. waxaa la rabaa sida uu ilaahay mas-uuliyadda noo saaray inaan annaga dhan u wada gudano, gaar ahaan adigana u gudatid.
dad fiicana kaa horeeyo kula shaqayn doono garabkaada allaha galo shaqo wanaagsan